wasiirka umuuraha gudaha Somaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo maanta warfidiyeenada kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ka hadlay muranka ka taagan qabsoomida doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ay badiba ku kala aragti duwan yihiin shacabweynaha Somaliland iyo waliba shakhsiyaadka falanqeeya siyaasadda Somaliland iyo waliba doorashooyinka. wasiirka arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri komishanku wuxuu muddadiisa dhamaanaya 29 November xilka cidi kama qaadi karto haday iyagu disi madax banaan u yiraahdaan waanu idin maca salaameynay waa meeshid komishankana aan leenahay wuxuu xambaarsan yahay xasaanad iyo maxaan ku dhahdaa sharaf uu ku soo qabtay doorashadii loogu dambeeyay oo ay naga istaahilaan inaynu si wanaagsan ugu mahadnaqno waynamadeenii hawl baynu dirnay hawl adag bay ahayd haday hawshu xumeeyeen inaynu xumaanta ku abaal marino haday hawshii wanaajiyeen inaynu si maxaan ku dhahdaa gobonnimo leh aynu ku abaal marino waa nimankaasi waxay qabteen hawl wanaagsan anu waxaan leenahay nimankaasi hawl wanaagsan bay qabteen xisbi oo ahdaana ma garanayno haday doorashadaasi 2019 qabsoomi weydana dal ahaanna dhib bay inoogu tahay sharci ahaanna dhib bay inoogu tahay annagu waxaanu taaganahay doorashadii 2019 muddadii la qabtay hal lagu fuliyo waa kow komishanka muddada ay codsadeen 10 bilood ahaa oo inuu bisha Abriil imika maanta joogna 2 bilood ba already cunmay oo ka baxay labadii biloodna inay 8 bilood hadhay dib isugu soo celiyaan oo ay xilka ku qabtaan muddada 8 bilood laba dariiqo oo kaliya baa furan dariiqad saddexaad oo furan ma jirto labada dariiqo ee fuleen oo fasaxan oo sharciga waafaqsan kow waxa uu yahay komishanka waqtigiisa uu dhamaaday komishan cusub hal magacaabo waa dariiqo sharci oo furan aan cidna gaf ku ahayn komishankuna aanu tirsan karin oo iyaga waqtigooda uu dhamaaday qodobka marka la qaato oo 29 November la joogo 13 Decemberna guurtigu waxay ku asteysay maalintii doorashadu dhacaysay 14 maalmood baa furan 14 maalmood baa furan haddii komishankeenani ay sidii doorashadii berigii dhaweyto madaxtooyada ay qabanayeen rag ka tagay noqdaan oo muddadii 2 bilood ahaydna ay aad iyo aad 8 bilood kale u dhexgeliyaan oo isku cufaan oo diiwaangelintii codbixiyayaasha ay qabtaan marba sidii la isla waafaqo ee danta loo arko annaguna waanu qabna laakiin annagu waxaan leenahay oo soo jeedinayna haddii doorashadii komishanku ay intiisii kala soo dhameeyeen oo 14 maalmood oo kale ay ka hadhay in ayaga amendment loo sameeyo oo extension loo sameeyo 24 saacadood in doorashada dhameeyaan oo by the time ay natiijadii sameeyaan oo la yeeliyo faylashii iyo xilka inoo hayeen ay ururiyaan komishanka cusub ee lagu wareejiyana ay sameeyaan. si kastaba ahaatee muddooyinkii u dambeeyay waxa uu muran xoogani ka taagnaa waqtiga rasmiga ah ee komishanka doorashooyinku ay qabanayaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka Somaliland. waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Andar, telefishinka caalamiga ee CNA magaalada Hargeysa.